salaan ka bacdi maanta waxaan halkan iskugu nimid sida uu sheegay nabadoonkii in aan ka hadalno oo aan maalin walbana ka hadli doono qadiyadda gabarteena Ikraam Tahliil Faarax oo muddo 70 maalmood inay ka badan tahay aan rajaynayo naga maqan waxaan marka u horeyso u mahadcelinayaa ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble oo runtii tallaabooyin aad iyo aad aan ugu faraxnay qaaday kulankii aan la kulanayna sidii uu noo ballan qaaday in qadiyadan uu istaagi doonana runtii wax badan ka qabtay waxaan leenahay ra'iisul wasaare aad iyo aad u mahadsan tahay cadaaladana wax ka wanaagsan ma laha ummadda bani aadamka ahna waa bani aadan oo ilaahay karaamadeeyay xayawaanka wax uu leeyahay oo sharci ma jirto laakiin dadka bani aadamka ah waxa kala haga waa sharciga iyo cadaaladda iyo nidaamka waxaan kaaga mahadcelinaynaa anagoo dareemayna culeysyada jira iyo jilaafooyinka badan oo jira sida aad u talaabo u qaaday garabkaadaan ku taaganahay habeen iyo maalin waa kugu taageeri doonaa haddii ilaahay ka raali noqdo aadaad u mahadsantahay waxaan rabaa inaan halkan ugu mahad celiyo muddadii dheereed ee hawshaan ay socotay shacabkii Soomaaliyeed ama ha joogo waddanka ama caasimadda ama gobollada ama adduunka qaybihiisa kala duwan ee qadiyadan u taagnayna waxaan leenahay walaalayaal waa mahadsantihiin jazakumullahu khayran waxaadna u istaagnaydeen Ikraam kaligeed ma aha sidii gabdhaha sharafta leh ee Soomaaliyeed aanayna arrintaan oo kale ugu dhicin waana idinka mahadcelinaynaa hadday dhaqan tahay hadday siyaasiyiin yihiin hadday culamaa u diin yihiin dhammaan inta ka kooban ee aan u kala harin oo shacabka Soomaaliyeed qaybihiisa kala duwan waxaan idin leenahay guulaysto waxaan idinka codsanaynaa inay weli taagan tahay qadiyaddii ayna u baahan tahay hiil iyo hoo sidii aad hore ugu taagneedna inaad weli u istaagnaataan waxaan habeenadan maqlaynay ciidamada qaranka Soomaaliyeed ee loogu talagalay inay amniga qaranka sugaan in ay dhalinyaro aan qoryo wadanin oo yani muujinaya boorar wata oo qadiyadda Ikraam ka hadlaya ina dhibaatooyin loo geystay la garaacay la xiray la dhibaatay arrintaas xaq ma aha waxa duugo haysiin gabar Soomaaliyeed xuquuqdeedii oo walaashiin ah ayaad leedihiin xuquuqdeeda yaan la arkin taasna ma suuroobayso waxaan u sheegayaa dowladda Soomaaliyeed intii fiyow oo madaxa inay arrintaas ka hortagaano dadkana qadiyadooda iyo fikirkooda xaqay u leeyihiin in ay ummadda tusaan oo ay muujiyaan taasna waxaan ka codsanayaa intii shaqo ku leh intaas kadib waxaan rabaa madaxweynaha farmaajo waa laga hadlay madaxweynuhu waxaan u sheegayaa in muddada 70 maalmood ah ee 3 bilood ku dhow oo dhibkan uu dhacay inuu hal maalin uu ka hadlin waxaa kaloon caddaynayaa dadkii aan u dirsanay oo inaan arrintaas kala hadalna rabnayna in ay haddii iga been sheegayeen ma naqaano laakiin uu diiday inaan una qaabilo annagoo khaaski ah weliba oo dhibana khaasi ah oo inta raadinaynay inaan arrintaas kala xiriirno dhib ma laha haddii xaqi dhinaca ka dilaacay waa sida hore loo sheegay xaqa haddii afka la qabto feeraha ayuu ka dilaacayaa ilaahay ayaa xaqi dilaaciyey maanta haddii hawshii oo meel fiican maraysa sida hore loo sheegay oo waxbana maalin ka qabanin inuu hadda hor istaago oo macnaha ku fikiray waxaan leeyahay madaxweyne arrintaas kuuma haboono waxaan leeyahay sida aan hadda xanta ku maqlayno waxaan u sheegaynaa inuu madaxweynaha ka shaqaynayo sida noola sheegayo in uu rabo in uu duugo xuquuqda iyo dhibka ku dhacay gabarteenna uu baabi'iyo oo la waayo warkeeda inuu ka shaqaynayo warkaasna si sir ah noo soo gaaray waxaan leenahay madaxweynuhu
gabadha maqan waxay la mid tahay gabdhaha adiga aad dhashay xanuunka ay gabadhaada leedahay haddii uu dhib ku dhaco ayay tanna mudan tahay inaad mataqaanaa aad la masaasho waxaan leenahay madaxweyne kiiskaasi waxay sharaftaada ku jirtaa oo mas-uuliyaddaada ay ku jirtaa in aad cadaaladda ka abbaarto oo ciddii dembigaas iyo raadkaas lagu tuhmaayo caddayn madax bannaan oo rasmi ah la sameeyo lana soo hor istaago sharciga ciddii ka dambaysay ikraam inta ay maqan tahay hadday nooshahayna waa sida hore loo sheegay waxaan u baahannahay iyadoo nool haddii ay nooleenna in aan helno meydkeedii ciddii falkaas samaysayna maxkamad sharci ah in la soo saaro waxaan leeyahay marka madaxweynow arrintaasi mataqaan kuma habboono hore ayaa haddii la fiiriyo mas-uuliyadaadii lagaa rabay aadan samaynin haddana haddii hawshii ra-iisul wasaarihii ou dadaalay inaad hor istaagto kuguma habboonee madaxweyne arrintaas aad samaynin aan leeyahay ra-iisul wasaaraha waxaan mar labaad u sheegayaa mahadcelin ka bacdi qodxo badanaa imaan doono dhib badanaa imaan doono inuu u istaagin annagana aan garab taagannahay oo cid walboo damaceeda uu yahay kiiskaas inay duugta sharaftiisa ayaa wax walba ka weyne inuu sharaftiisa qiimeeyo oo cidna dhegaysaninna waa ka codsanaynaa waxaan intaas ku darayaa waxaa maalmo dhoweed dhacday arrimo oo runtii dad caraysan oo ahalka ah oo annaga naga mid ah oo dhallinyaro ah in ay dad walaalo ah oo deris ah oo waxaa la leeyahay waxay ku heeb yihiin agaasimaha nabad sugidda in ay xoogaa la dhibaateeyey runtii si ay mudnayn lagu sameeyey la xerxeray muddo ay xernaayeen arrintaas waxaan leenahay sax ma aha waana ka xunnahay waxaanse aad iyo aad ugu mahadcelinayaa intii ka shaqaysay arrintaas dhacday in ay dhammeeyaan oo dadkii sharaftoodii xorriyaddoodii la siiyo dadkii ka shaqeeyoo dhan hadday mas-uuliyiin siyaasadeed yihiin hadday nabadoonno yihiin hadday shacab yihiin waanu u mahadcelinaynaa waxaana leenahay ha lagu dadaalo reer beledweynow in sharafteenna aan meel loogu dhicin oo waxaan na mudnayn dhibaatada nagu dhacday waa dhibaato ka timidid dhinaca dowladda oo shakhsiyaad mataqaan ay ka dambeeyeen waxaana rajaynaynaa in sharciga lasoo hor istaagi doono ha fududaadnina meel fiican ay wax noo marayiin dad shacab oo masaakiin ana mar dambe yayna dhicin in la handado ama la dhibaateeyay dhicin waana mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu